marka la casharkeena ku soo dhawaada walaalayaal casharkan waxaynu ku dhigan doonaa qaabka lacagta ama bank account ka aad ugu diraysid si lacagta lagu soo diro hadaba bank account ki baa loo baahan yahay inaad ku darto Google AdSense account kaagi hadaba si lacagtaadi kugu soo dhacdo maxaad u baahan tahay bank account lagu soo rido markii hore waxaynu dhiganay qaabka address ka hadaba waxay noogu xigtaa bank account ki baa inoo hadhay marka bank account waa inuu noqdaa meesha address ka dhigatay waa inuu bank account ku yaalaa marka bank account ka marka aynu ku darayno waxaynu sameeynaa waa inaynu payment aynu sameeynaa lacagteenu noogu soo dhacdo hadaba bank account ka aynu ku daraynaa marka imika wayna la socon doontaan qaabkan ugu darayo hadaba marka aynu halkan taaganahay waa inaynu ku dhufanaa payment methods halka ay ku taalo waa inaynu ku dhufanaa kadib page cusub inoo furaya hadaba halkan aad imika arkaysaan waa primary ayaa loo yaqaanaa marka waa address-keeni waxyaalaheeni hore ku jira aynu ku buuxinay tusaale ahaan halkan aynu ku dhufanaa add new payment waa keeni hore kaasi ku cusub laakiin sameeynaa marka halkan waxaad ku arkaysaan maadaama kii hore address-keeni waxyaalaheeni ku jiray ay ahaayeen bogoskii hore kani wuxuu noqonayaa bank account ki iyo waxyaalihi baynu ku qoraynaa hadaba bank account ki waa anigii mar hore idin sheegay bank account ka marka aad qoraysid waa in aad buuxisaa formkan marka magaca qofka account kale ayaa halkan lagu qorayaa halkan waxaad ku qoraysaa bank account bank name ka bankiga lacagta ku dirsanaysid magaciisa halkan waxa lagu qorayaa swift code ki aan ku sheegay marka swift code muxuu noqonayaa swift code wuxuu noqonayaa waa code banki waliba uu leeyahay bankiyada adduunka banki kasta code buu leeyahay swift code wax loo yaqaano oo lacagta loogu saxwilo marka halkan waxaad ku arkaysaa bank number account number marka account number ki waxaad qoraysaa bank account ka bank account waliba wuxuu leeyahay account number wax loo yaqaano marka account number kaas halkan gelinaysaa marka kadibna halkan waxaad dib u gelinaysaa mar labaad ku celinaysaa account number ki aad gelisay halka ayaad mar labaad gelinaysaa halka saad ku aragtaan bari type account number halkan waxaad ku qoraysaa iyadana marka bankiga dhexe ayuu ku leeyahay magaciisa sheeg buu ku leeyahay intermediary swift marka inagu de banki dhexe ma lihin maadaama marka address-keygii aan ka dhigtay Mareykan USA ka dhigtay address-keygii wuxuu ku leeyahay intermediary swift ayuu ka sheeg ku leeyahay marka bankiga dhexe ee Mareykan banki dhexe Mareykanka ku yaala waa inaad swift-giisa gelisaa marka saasay noqonaysaa halkaasina swift-ga bankiga dhexe ee Mareykanka ku yaala marka meesha joogtay ku xiran tahay marka bankiga dhexe ee dawladdu ka wada baan filayaa ayaad gelinaysaa swift code-kiisi marka dadka isticmaalayeen baa garan doona oo markaaba ku sheegi doona bankigooda dhexe marka saasad u buuxinaysaa aan idin sheegay exactly saasad u buuxinaysaa mid walibana aan idin sheegay bay noqonaysaa marka halkan sare idinka ilaaway sorry halkaas sare waan idinka ilaaway laakiin hadda xasuustay marka halkaas sare waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay ka faa'iideystaha qofka ka faa'iideysanaya barnaamijkan ama waxan ama lacagta helaya ID-giisa ayaa halka lagu qorayaa marka waa optional buu kuuriyo haddaad rabtidna waad gelin haddaad rabtidna waad iskaga tagin uma baahnin marka halka haddaad rabtidna waad gelin kuma soo saarayo haddaad wax gelisid haddii kaleba marka halka haddaad doonto waxbaad gelin haddii kalena waad iskaga tagi waa optional weeyaan marka walaalayaal saasaa loo buuxinayaa marka bankiga account-ka saasaa loo gelinayaa insha Allah waa inay casharadeenna dambe